waxaa soo baxaysa oo soo yani runtii nasiib darro ah 2018 inay dhacdo nin xildhibaan Soomaaliyeed jidkan ma mari kartid in lagu yiraahdo waxaa nasiib darro ah oo ku filan qof kasta oo rajo ka qabay in Soomaaliya dal يعني عدالة نظام سيستم في عن كل شقينا إنه قط قف كستور رجيف كقبي وحيابها 10 كأو أو رجال أنت دقي وحكم ذا ننحل ديوانه نين أسكري إنه حبط سنك كجلي ننكر رواء أسكري جاسو يعني ما أنت حل ديوانه تاي مدحوينه تاي رئيس الوزراء تاي وزيره تاي تلي بوليس تاي لكن أجو بريت من قدونتي أجو بريت من قدونتي مدحوينه رئيس الوزراء iyo wasiir amni iyo taliye amni midna ma noqon doontid haddii qofka ku fasaxay xildhibaanadii qaranka in jidka laga celiyo oo macnaha loola dhaqmo si aan yani nidaamka caalamiga ah yani nidaamka yani dastuurku sidoo qabana aan yani la waafajinayn nidaamka loo caalamiyan la waafajinayn waxaan u aragnaa nasiib daro annaga bulshada ahaana waxyaabaha aynaan sinaba uga aamusi karinay kamid waxyaabaha siyaasadda iyo khilaafka dhexdiina annaga nama quseeya laakiin waxaana quseeya waxyaabaha principleska dawladnimadu ku dhisan tahay waxyaabaha taabanaya in xildhibaan askari oo qoraysan ka galiyo inta jeer ee anigu goob jooga u ahay iska dhaaf inta aan maqlay inta aan xildhibaan wareystay ayaa ka badan waxaan kaloo rabaa qodobka labaad aan rabo inaan taabto runtii wasaaradda amniga dalka dhibaato xoog laha ka jirta laba sabab laba dhinacba mid heer waxay maraysaa wax alla wixii dastuurka ku qoraa ummaddu ku heshiisay oo ahay qofka xurriyadda siyaasiga ah iyo xurriyadda hadalka labadiiba inay caqabad ku hayso cadaadis xoog lana ku hayso taliyaasha waxaa lagu amray oo saraakiisha yani booliiska aan la kulanay oo aan la sheekaysanay amar lagu siiyey yani qof mucaarid ah oo dawladda mucaarid ah magaalada muqdisho shir kuma qabsan karo waxaan rabnaa wasaaradda amniga inay arrinkaas ka jawaabto meesha ay ku qoran tahay dastuurka kaga qoran tahay meesha ay dastuurka kaga qoran tahay inaan nin mucaarad oo shir qabsan karin oo san xurriyadiisa ra'yigiisa hadli karin rabnaa inaan wasaaradda amniga weydiin wasaaradda amnigu ma qarankay u shaqaysaa mase waxay shaqaale u tahay dad gaar ma sharciga dalkay ku shaqaysaa waxaan dhaliil u soo jeedinaynaa wasaaradda amniga taliyaasha booliiska gaar ahaan nabadgelyada iyo booliiska dastuurka waxaa ku qoran qofka siyaasiga ah wuxuu xaq u leeyahay inuu shir qabsan karo mucaaradi karo dawladda ra'yi afku ka hadli karo waxa la diidan yahay waa in xabad la isu qaato waxa la diidan yahay waa in maaragtay fidna la horiyo annaguba taas waa ka soo horjeednaa in dadka siyaasiyiinta ah dadka dhexdooda fidna ka abuuraan waa ka soo horjeednaa laakiin haddana xuquuqdooday ka mid tahay xuquuqdooda waxaa ka mid ah inay shir qabsan karaan hoteelkan hadda maanta aan imid waxa ugu horreeya la weydiiyey waxa waa shir siyaasadeed ma qabanay oo haddaad u diiddo inuu shiro oo haddaad u diiddo inuu ku dhaliilo waxa u haray waa inuu qori qaato Soomaa waxa la dhiiri gelinayo waa in amniga gacanta ka baxo haddaad dadka xurriyadooda u diidaan waxaa si toos u dhiiri gelinaysa in amnigu gacanta ka baxo waxaana mas'uuliyadda koowaad ku dhacaysa wasaaradda amniga gaar ahaan taliyaha booliiska iyo taliyaha nabadgelyada waxaan leenahay dadka cabasho badanaa jirta bulshada rayidka waa loo soo cawdaa waa maxkamad dad badan oo siyaasiyiin waxay leeyihiin waxaan weynay saaxadii aan waxa aan rabno ku sheegi lahayn oo aan dawladda ku dhaliili lahayn say shalaba maartay ayagu wuxuu dhaliili jireen annaga bulshada rayid ahaanna kama aamusi karno haddii dadka aad ku dhiiri gelisaan inay dacwooyin furaan oo de meel walba ay warqado la istaagaan waddanka dhibaato soo gaaraysa waddankan waxaa dan ugu jirtaa in la isu dulqaato qofka xuquuqdiisa muwaadinka loo ogolaado xurriyadda hadalka loo ogolaado haddii aad labadaas u diidaan waxa ku xiga oo aad u fasaxdeen waa iska muuqdaan marka waxaan leenahay oo maaragtay madaxda qaranka ugu nasiixaynayna booliiska culays xoog laha ka jira hay-adaha amniga sida gaar ahaan taliyaha booliiska taliska booliiska iyo taliska nabadgelyada culays weyna ka jira yani markaad wadooyinka marayso maalin kasta waxaad arkaysaa qof muwaadin Soomaaliyeed leeyahay askari iyo xabad dhafoorka iga saar
askariya xabadda foorka iga saaray waxaa dhacday maalin dhood niman ganacsataa ii yimid aniga waxay dhan meeshii aan ku ganacsanaynaa askar isbaara dhigat naga wareejiyaan dhahan waa naga diideen waa dacwoon waxbaa laga qaban waayey waxaan damacnay inaan boorar inta ku dhegsano mudaharaadno meeshii boorarka laga sameeyay waxa la yiri warqadana loo dhiibay hal booro dawladdu raali ka ma sameey kartid hadii noo sheegi kara meesha loo socdo dalka loo wado fiiri qofka waxa caafimaad waxa ah oo qofku markuu ra'yigiisa dhiibto oo hadlo intaas ka badan ma sameeynayo wuxuu rabaa meesha uu ku ganacsanayo in laga qaado ciidanka isbaarada laga qaado si ganacsigiisu u shaqeeyo intaas ka bilaabatay siyaasad ma ahayn marka hadii hay'adaha amnigu ay u soo jeestaan shacabka inay caburiyaan taas waxay dhaliil ku noqonaysaa madaxda qaranka mana yani bulshareed ahaanna waxaan rajaynaynaa annaga waxay nooga soo aaday nasiib dar hadda culaysyada wadanka jira waxay nooga soo aadeen hay'adeen iyo doorasho ku jirta waxyaabaha aad dareemaysaan inaan idaacadaha ka hadlin oo maalin walba telefoonada aniga u soo dhacay leeyahay wardiiniyo maxaa bulshada reeyid xagee aad nasiib daradu waxay ka timid hadda annaga iyo doorasho ku jira laakiin arrimaha qaarkood waa laga xisaabtamayaa mana aha arrimo annaga aan maartay ka aamusi karno inaa ka qarsan karno haddii aad isleedihiin shacabku askari meel taagan oo qor haysto ka cabsana taas ma celi karto shacabka askari qor haystay ma celi karo waxa celi kara amniga dadka ilaaliya oo amniga qaranka ilaaliya oo amniga shacabka ilaaliya oo amniga caadiga ah ee maartay jira ilaaliya bulshada reedka ugu horeysa 24 saac dariiq waxaan la taaganaa leena war nabadda hal ilaaliyo askarta hadda xuduudkoodu waa soo dhaafay waxaan u sheegaynaa taliyaasha booliiska waxaan u sheegaynaa wasiirka cadaaladda waxaan u sheegaynaa wasiirka amniga waxaan u sheegaynaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ciidanka amniga gaar ahaan booliiska iyo nabadgelyada xuduudku caadiga ah waa soo dhaafay haddaadnaan rabin in intaas la idin sheegana si kala la idinku sheegi doono waa mahadsantiin